السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودو هذا صاحب بيال عاوي يبدي يقول دنبيي يقعد بدو بحساب بدن يبروجرام كنا وآخرين كسوقاته وآخرين كانوا أقول لي بدن طبعا واحد إنه كسوق عدم دونا ودجال دي مكا كتاجنا قلبتك أما باش يسمرون إيه باش يسوق مكا وبحيه ولا حالد قدام الحين مكا جارتي عيسو أي ولفت كده بقان كده مكا مال عد وتاجي هاي بس الفيديو كان أما قدر كان إنه سوق عدنا إنه ما أهمت مكا خصية باشي قيسي أهلنتو waxay u taalaa waa baashi Samaroon iyo baashi habar awal nimankii Sacad Muuse iyo Samaroon ayaa u videogani ama qodobkani u marka xuseeya maxaa yeelay waxa ay noqday dagaaladii marka hadda dhowrkii bari ee la soo dhaafay Socday iyo hawsha taagnay in uu ahaa marka dagaal aad u weyn oo Traal lagu gubtay oo baashi Ciise Samaroon deegaan badan marka xitaa ay ka qabsadeen oo ay soo jabsadeen waxaana lagu wadambeysay Samaroon oo marka soo yaacday oo ilaa iyo marka boornaba ku timid ama boornaba meel marka ka baxsan sidii u soo ordayeen guriyoodii yimid oo looga daba yimid dabcan deegaanma badan marka beeshi Ciise ay gacanta uga dhigeen hadaba Samaroon meeshii ay xisaabtami lahayd oo ama dagaalka ay soo diyaarin lahaayeen Samaroon waxa ay ku soo jeesatay oo dagaalkii ay kuba bilaabeen waa beeshi Isbeer awal nimankii Sacad Muuse ayaa ay dagaalkii kula soo jeesteen sababtuna waxay tahay Samaroon dhowrkii bari ugu dambeysayba waxaad u maleynaysay in ay hawshoodu isbedeshay ama ay Soomaaliland ka soo jeesteen leeyihiin ma waxna laga qabto ama dagaalka markaan nala galo oo ama dagaalka ay Soomaaliland soo gashay beeshi isa si Ciise marka aan ugu dulno balse Soomaaliland xaqiiqda dhabta markaynu ka hadalno Samaroon si walba way u garab taagnay oo wax walba loo sameeyay xitaa hub marka Abu Khalifa uu ku caawiyay beeshi Samaroon waxaan ka ahayn marka in Soomaaliland iyadoo marka ama qabiilaysan ama ciidankii marka meesha socdo intay gada guushi soo raacaan Ciise marka in lagu duulo taasi ma aysan dhicin oo Soomaaliland geesbi ka istaagtay waa dagaal beeleed labadiiba isoo kay mid dadkiin waana dagaal beeleed mid ama isaaqaan u soo galay ama Soomaaliland ahaan mid meeshii taala ma ahan Samaroon iyagoo taa marka ka xanaaqsan waxay gacanta ku dhigeen oo ay afduubteen gaari ay leeyihiin beeshi Jibriil Abukar ee Sacad Muuse ee habar awal ayaa ay weerar ku qaadeen oo waa ay dhaceen gaarigu in arki doona videoga iyo qaabkii ay wax u dhaceen waxa dhacay oo marka jidka u galeen waa nimankii Samaroon maxaa ku kalifay marba hadii Ciise ay iska celin waayeen dabcan oo la soo jabsaday oo nimankii ay soo yaaceen oo ood ay soo jabsadeen de waxa ku kalifay marka inay habar awal beeshi Sacad Muuse Jibriil Abukar gawaadhidoodii dhacaan de Samaroon ku qaldayn taas hadii ay u maleeyeen Ciise ay ka soo adkaaday ee Sacad Muuse aadan iyagu marka u daran tahay oo isku awood xitaa hadii ay qabiil timaado ma noqonayso qoraalka aynu halka uga jeedno iyo abdeedadii marka ugu dambeeyay iyo gaariga marka ay dhaceen videoga gaarigana waa aynu soo arkaynaa waa wax aad u la yaab badan nimankii Sacad Muuse habar awal marka waxa taagayeen war aaway gabdhihii marka habar awal ee Sacad Muuse ee hawlahan ku shaqo lahaa dagaalka soo galaan oo nimanka Samaroon meelaha saaraan kulli hadalka waxba ku hoos laaban maleeshiyada qalbuureen ayaa marka loo wacay oo la leeyahay war hawshan wax ka qabsada videoga marka ay Samaroon dhacday oo beeshi habar awal oo beeshi Sacad Muuse nimankii Jibriil Abukar gaarigooda ay dhaceen bal meeshan ila fiiriya ويا باس كاس كفر انا ولي تاغنتي جوجيه كان وكا حبب داو كبعد ماركسا وعلكم وضعوا وغاري marka rasaasta ku furan nimanka Samaroon oo nimankan Jibriil Abukar ee marka gaarigooda la dhacay waxay taagan yihiin iyagoo na joojiyay oo marka aanu uba istaagnay ay xitaa marka rasaasteen ugu furan oo way naga joog waayeen raadu qof taagan oo ku istaagay sida ay rasaas marka dabka ku qabadsiinaysaa macnaheedu waxay noqonaysaa dadka inaad disho ayaad marka ugu tala gashay waxa sameynaya waayo waa nimankii Samaroon oo inta ay ka warartay Ciise markay ka soo yaaceen waxay bilaabeen inay jidgooyo meelaha u galaan gawaadhida ganacsatada ah ee Sacad Muuse ee meesha maraya oo inay wax dhacaan oo dhul jiifayaan ay hadda hawshooda ku soo gabagabooday riyaa Ilaahay yaqaan Samaroon hadii Ciise marka la iska qaban waayo hawshaada ma waxay taagan tahay inaad gawaadhidii Sacad Muuse marka dhacdaan bal waxaynu arkaynaa meesha marka ku dambayso gaariga aynu jeednaa gaariga marka dhacay صدح طاير هي طاوية لبنا
taayirka hore iyo labada taayir ee dambe ee isku xidhan waa meelaha markaas samaroontu rasaasta kala dhacday gaariga marka ay joojiyeen gaarigii oo taagan ayay markaa dab saareenba wallahi waa la isu yaabaa hawshan hawl sahlan maaha oo taayirka hore makiinada waan baarnay weli wax maana xagga makiinada waan ka arag laakiin boor iyo waxbaa isku xidhay haye waa intaa weeyaan waa hagaag kuwa baabuurtii sawiraad kuwa soo socda markaa waxaad ka garanaysa inay yihiin isaaqi meel dagaalamayaan in ciisadii ula dagaalamay isaaq bay doonayaan oo baabuurtoodii waa kuwan gawaadhida samaroonta oo markaa soo socota oo ninkan wuxuu taagaya samaroon ma waxay naga rabtaa inaan markaa dagaalka la galno oo ciise markaa aan dagaal ku qaadno waa hawshu waxay u xanaaqsan ama wax u wadaanba waa sidaa maxaa dagaalka nolola soo geli waayey oo ciise weerarka nologula qaadi waayey waa hagaag yarayga 1 minute waa gawaadhida ayaa u sugaya gaarigaas waa hagaag waa China ciise leeya weliba weeyaan maaha gaari saaqii gaari samaroon mid toona maaha waa hagaag waa gaari ciise ka markaa soo socda waa gaari ciise waaya waa gaari ciise maaha gaari saaqii gaari samaroon saaq baa eega dagaalamaya maaha ciise maxaa uma socdaan waa yeega yacni ciise xitaa maba rabaanba ayuu taagay oo gaariga meesha socdaa marba hadduu gaari ciise leeyahay uu yahay maxaa kalifay samaroon gaarigan isaaq leeyahay ama nimankii sacad muuse ay wataan in weerarka ay kusoo qaadaan oo weliba gaarigiiyo markaa istaagay in rasaas ooda looga qaado yani waa mucjisada meesha ka taagan ciise xitaa markaa uu yahay markasa gaarigaas waa gaari ciise alaab ciise sida nin ciisana wada hadday ciise doon yihiin ama ciise la dagaalan may gawaarida toogtaan xabadeeyaan sababtay gaarigan isaaq u tooganayaan maxay tahay sababta balana noo sheego gaarigan aad arkaysaan hadday xoolo ciise doonayaan meelaabta la degaan sababta mashin weeye waxbaa ka dambeeya filim weeye gawaaridu saas u maraysaa gaarigeena loo taageedgaraysanayo ee taariikhdiisa loo toganayo loo maagan yahay dee samaroon waa waxay nimankii samaroon dhibaaxadii ciise ku dhuftay oo ilaa iyo boorama ay ooda soo jabsadeen nimanka maskaxdayada way dhaqaaqday marka oo hadda waxay kala garan laayihiin waa isaaq iyo ciise kuwa ciise xitaa markaa kumaba dhacaan oo dee dabcan way ka baqanayaan in ay waxyeello u geystaan ilaa iyo boorama markaa la iskaga soo dabagelaya oo ciisahan cid qabataaba aysan meeshii joogin oo iyagoo ordaya kusoo gelaya oo hadday doonaan isu kasoo qaawinaya dee waxba markaa ma ka qaban karaan dantu hadda marka ma waxay ku galaftay gawaadhidii sacad muuse in samaroon ay kusoo jeesato oo ay marka ay tahay rasaaseeyaan ay dhacaan maalinkii saddexaad ramadaan baa nagu soo gashay markaa meeshaasaan lagu dhibaataysanahay ma garateen ninkii dhibaataysan oo geystina magaalada soo iska qaylaya oo iska marqaamaya oo iska raaxaysanaya annagana halkaas dhaxantii dabayshiyo dhibaataduna waa istaarafaadka cid noogu timid diini ma jirto ilaa haatan ma garateen markaa dowladda waxaan ka codsanaa in ninka gacan bira lagu soo qabto yaa ninka mucjisada meeshan taalla idinku arka walaalayaalo waa gaarigii markaas gaarigiina hadda daawadaynay iyo dee nimankaa watay ee markaa ka hadlayay ama falanqaynayay qaabkii loo dhacay ama dhibaatada ugu timid waa niman markaa sacad muuse oo jibriil abukar ah oo iyagu markaa caddaynayay qaabkay wax ugu dhaceen ama dhibaatada loo geystay inta ay markaa ahayd samaroon dee kullahayn meela isu wada ma aqaan balse waa la wataa waxay ku dambaysaa aynu arki doonaa videoganna kuma raagayno halkaasaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyey intaan sugmaadno videogan video lamida iyo wixii cusuba kusoo kordhay insha allah waxaa idinkaga tegaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu